shirin ka badan 2 toddobaad ka socday magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa lagaga dhawaaqay sanadii 1991 gobolada waqooyi inay ka goosteen dalka Soomaaliya intiisa kale. Somaliland waxay ka kooban tahay dalkii la oran jiray Maxmeedii Somaliland ee Ingiriisku gumaysan jiray sida ku cad dastuurka u degsan qodobkiisa koowaad iyo kiisa labaad. Dadka degan gobolada Ingiriisku gumaysan jiray oo ka koobnaa 5 intii aysan dhicin dawladda Soomaaliya waa kuwa mabaadi ahaan ku kala duwan qadiyada go'aansho waqooyi galbeed iyo Togdheer ayaa si weyn looga taageeraa in Somaliland noqoto dal madax bannaan halka Awdal Sool iyo Sanaag ay doonayaan in laga sii mid ahaado Soomaaliya. warbixintan kagama hadlayno arrimahaas kaliya waxaan ku eegaynaa in maamulka Somaliland yahay mid ay ka dhex muuqdaan beelaha deegaanada uu sheegto iyo in kale. Isaaq, Samaroon, Ciise, Dhulbahanta iyo Warsangeli ayaa ah beelaha ugu deegaanka ballaaran dhulka Somaliland walow ay jiraan kuwo kale oo tiro badan. qaab dhismeedka qaranka dhismaha qaranku wuxuu ka kooban yahay 3 waaxood oo kala ah xeer dejinta, fulinta iyo garsoorka sida uu dhigayo dastuurka Somaliland qodobkiisa 37 farqadiisa 2. xeer dejintu waxay ka kooban tahay 2 waaxood oo kala ah golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxaase awoodda badankeeda leh wakiilada. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waa gudoomiyaha golaha wakiilada halka Saleebaan Maxamuud Aadan uu yahay gudoomiyaha golaha guurtida labaduba waxay ka soo jeedaan beesha Isaaq. xubnaha baarlamaanka Somaliland oo ka kooban 82 ayay beeluhu u kala heleen sidan: Isaaq 57, Samaroon 13, Ciise 1, Dhulbahanta 6, Warsangeli 4, Fiqishin 1. si dastuurka wax looga bedelo waa inay soo jeediyaan 3 meelood oo meel ka mid ah tirada guud ee golaha wakiilada taasoo u dhigan 28. Samaroon, Ciise, Dhulbahanta, Warsangeli iyo Fiqishin oo mar kale isku daro leh xubno dhan 25 ma soo jeedin karaan sidii dastuurka wax looga bedeli lahaa xataa haddii ay isu kaashadaan. xildhibaanada beesha Isaaq waxay ansixin karaan ama diidi karaan mooshin iyo xeer kasta oo golaha wakiilada la hor keeno si kasta oo ay u diidan yihiin xubnaha ka soo jeeda beelaha kale sababtoo ah waxay haystaan aqlabiyad buuxda. fulinta golaha fulinta waxaa madax u ah madaxweynaha waxayna ka kooban yihiin ku-xigeenkiisa wasiirada, wasiiro dawlayaasha iyo wasiiro ku-xigeenada. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi oo dabcan ka soo jeeda beesha Isaaq ayaa hogaamiya waaxdan. ugu yaraan 70% ka mid ah xubnaha golaha wasiiradu waxay ka soo jeedaan isla beeshaas oo iyadoo haysata wasaaradaha ugu miisaanka culus sida maaliyadda oo la miisaan ah 4 wasaaradood. garsoorka maxkamadda sare waa hay'adda ugu sareysa garsoorka isla markaana waxay tahay maxkamadda dastuurka sida ku xusan dastuurka qodobkiisa 101. aadan xaaji cali oo u dhashay beesha Isaaq ayaa ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland. nidaamka siyaasadeed qodobka 9aad ee dastuurka farqadiisa koowaad ayaa u dhigan nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo wadaag, dimuqraadiyad iyo hanaanka xisbiyada badan. farqada 2aad ee isla qodobkaas ayaa lagu jaangooyay tirada xisbiyada 3 halka farqada 3aad lagu yiri waxa reeban in xisbi lagu dhiso goboleysi iyo qabyaalad. kulmiye, wadan iyo ucid waa 3 xisbi ee xilligan ka jira Somaliland kuwaas oo ay u xiran tahay saaxadda siyaasadeed maadaama aanu sharcigu ogoleyn urur afraad. Muuse Biixi Cabdi Kulmiye, Cabdiraxmaan Maxamed Ciro Wadani iyo Faysal Cali Waraabe Ucid ayaa gudoomiyayaal ka kala ah 3daas xisbi dhammaantood waxay ka soo jeedaan beesha Isaaq. doorashada madaxweynaha siyaasi kasta oo doonaya inuu u tartamo hoggaanka Somaliland waa inuu soo sharaxo mid ka mid ah 3 xisbi qaran. doorashooyinka madaxtooyada ee dhawaan la filayo inay ka qabsoomaan Somaliland 3 xisbi waxa ugu kala sharaxan jagada madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen Ucid, Muuse Biixi Kulmiye iyo Cabdiraxmaan Ciro Wadani dhammaantood waxay ka soo jeedaan beesha Isaaq taasoo ka dhigan in beelaha kale aysan u tartami doonin jagada madaxweynaha. waxaa jira xilal kale oo miisaan leh sida taliyayaasha ciidamada, agaasimayaasha guud iyo madaxda hay'adaha madaxa bannaan kuwaas oo ugu yaraan 80% ay hogaamiyaan xubno u dhashay beesha Isaaq. muhiimadda warbixintani ma ahayn in aanu ku eegno dhammaan xilalka maamulka Somaliland taas bedelkeeda waxaanu diiradda ku saaraynay xilalka muhiimka ah ee tiirarka u ah maamulka sida uu qabo dastuurku.
su-aasha ah Somaliland qaranland mise qabiilland ee aan uga dhignay warbixintan ciwaanka warsidaha faaqidaad ma danaynayo inuu ka jawaabo sidaa darteed waxaanu ka tegaynaa iyadoo ah mid furan oo qof kasta ka jawaabi karo